maxkamad ku taal magaalada Boosaaso ayaa maanta dil ku xukuntay baan iraahdee 2 nin oo ay booliiska gobolka Bari sheegeen inay dil iyo kufsi u geysteen gabar daayar. Faafahinta warkaas waxa inoo haya wariye Axmed Caawil Jaamac. labadan nin maanta la ugu xukumay dilka toogashada waxa ay ku eedeysnaayeen gabar 14 jir oo 24 bisha magaalada Boosaaso meedkeeda laga helay taasi oo la cadeeyay in baawur la marsiiyay isla markaasna horay ay ciidanka booliska iyo waliba dhaqaatiirtu ay sheegeen in aan kufsi loo geysan hase yeeshee gabadhaasi baawur u maray balse intaas kadib labadan nin markii la soo qabtay waxa ay qirteen inay gabadhu iyaga ay dileen isla markaasna ay kufsadeen maanta markii maxkamadda la geeyay isla markaasna xeer ilaalintu ay soo eedeysay waxa ay ka hor qirteen maxkamadda horteeda in ay falkaasi iyaga ay ku kaceen waxaana jirta in qareenkii labadan nin uu doodayay isaga laftigiisa goobta maxkamadda horteeda uu ka dalbaday in kiiska laga khafiifiyo maadaama ay qiraal yihiin marka dadweyne kala duwan ayaa goobta lagu xukumayay ee maxkamadda dhexdeeda ku sugnaa waxaana kamid ahaa caa'iladii gabadhan xukunka loo riday labadan nin. wariye Axmed Caawil aad buu u mahadsan yahay.